الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسولك صلى الله عليه وسلم markii waraqa uu ka soo baxay uu hawlihiisii diin faafinta halkiisii ka sii watay qurayshna inkastoo ay qaadacaadii joojiyeen haddana ma ay dayn cadaadintii muslimiinta iyo sortaagii diinta alleh abu daalibna kama dabcin daafacaadii wiilka walaalkii laakiin saddex buu noqday oo 80kiibu sare u dhaafay oo dhibaatooyinkii faraha badnaa iyo jirooyin isugu xigsaday baa jirkiisii jileeyay oo awoodiisii nugliyay dhabarkiisiina waa soo gotay bilayarna kama soo wareegin markii uu waraqa ka soo baxay markii ay jirra qabatay oo ku sii adkaatay markaas bay mushrikiintii ka baqeen inay magaxuma carabta dhexdeeda u gasho haddii ay markii uu dhinto kadib wiilka uu adeerka u yahay wax gaarsiiyaan markaasay waxay isku dayeen inay mar kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo la joogo gorgoro la galaan oo waxaysan awal u ogolaadaan markaas bay wafdigoodii u dambeeyay abu daalib u direen ibnu isxaaq iyo rag kaleba waxay yiraahdeen markii abu daalib jiraday oo qurayshi gaartay inuu cuslaaday bay qurayshi is yiraahdeen xamse iyo cumar waa islaameen arrinka muxamedna quraysh oo dhan waa ku faafay inakeen aan abu daalib u tagno wiilka uu adeerka u yahay ha inooga cadgooyo isagana ha uu cadgooyo oo ha noo garqaybsho wallaahi baanan aamin ka qabin inay talada naga boobaan waxay kaloo yiraahdeen baa la yiri waxaa laga yaabaa in odaygaani dhinto oo dabadii wiilkiisa loo dabamaro oo carabi inagu ceebayso oo tiraahdo intuu noolaa ku dhici waayeen bay markii uu dhintay wax yeeleen abu daalib bay u tageen oo la hadleen iyagoo 25 nin ah oo ay ku jiraan odayaashoodii sida cutba bin rabiica shayba bin rabiica abu jahl bin hisham umayya bin khalaf sufyaan bin harab iyo rag kale oo duqay ah markaas bay yiraahdeen abu daalib oo sida aad og tahay naga mid baata waxaana ku soo hareeyay waxa aad arkaysid waana ku baqaynaa waadna og tahay annaga iyo wiilka aad adeerka u tahay wixiina dhexyeel u yeer oo wuxuu nagu yeesho naga sii waxaan ku yeelanana nooga qaad si uu noo daayo annaguna aanu dayno oo annaga iyo diintayadaba uu faraha nooga qaado annaguna aan isaga iyo diintiisaba faraha uga qaadno markaas buu abu daalib u cidiray markii uu yimidna wuxuu ku yiri maandhow waa kuwan duqaydii tolkaa kuu soo shiray si ay xaqaaga kuu siiyaan adigana xaqooda kaaga qaataan oo aad u kala garqaadataan markaas buu u sheegay arrintii ay u soo bandhigeen oo ahayd in labada geesood amaan isa siiyaan oo aanay waxba isku darsan markaas buu rasuulku yiri sallallahu calayhi wasallam hadal macnihiisu yahay bal ka warrama haddii aan idin siiyo kelmad haddii aad tiraahdaan aad carab ku mulkiyeysaan cajamtuna hoostiina imaanayso oo aad u talinaysaan markii uu ereygaas yiri bay hakadeen oo taladii ka dhuntay oo garan waayeen si ay u diidaan kelmaddaas waxtarkeedu intaa la eg yahay markaas buu yiri abu jahl maxay tahay waa nagu aabahaaye 10 la mid ah baan ku dhahaynaaye wuxuu yiri waxaad oranaysaan laa ilaaha illa allah ma jiro wax xaq u leh in la caabudo oo aan ahayn alleh waxa aad sokadii caabudaana faraha ka qaadaan markaas bay gacmaha isku garaaceen oo dabadeed yiraahdeen ma waxaad rabtaan maxamedow inaad la caabudayaasha hal la caabudo ka dhigto arrinkaagu waa la yaab markaas bay isku yiraahdeen wallaahi bayda ninkan waxaad rabtaan mid ka helayn ina kiciya oo diinta aabayaashin ku mintida inta alle ninkan iyo idin kala saarayo wayna kala tageen waxaana ku soo degay hadalkooda aayadahan quraanka jiradii baa abu daalib ku soo cuslaatay in yar kadibna tii alle baa u timid oo waa uu xijaabtay wuxuuna geeriyooday bishii rajab ee sanadkii 10aad ee nebinimada 6 bilood kadib markii waraqa laga soo baxay waxaa saxiix al-bukhari ku yaal oo musayab laga wariyay markii ay abu daalib geeridii soo kor joogsatay uu nabigu sallallahu calayhi wasallam u yimid iyadoo abu jahl la joogo oo ku yiri
hadal macnihiisu yahay adeerow dheh laa ilaaha ila allah, waa kelmad aan alle agtii kaaga doodi doono markaasay yidhaahdeen abujahal iyo cabdullaahi ibnu umaya, abu daalibow ma diintii cabdimudallib baad wax ku doorsanaysaa? sidaas bayna ku hayeen ilaa uu diintii cabdimudallib haysto. markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi, dembi dhaaf baan kuu baryayaa. markaas buu alle soo dejiyey. caddayn uma baahna sidii abu daalib nebiga sala allahu calayhi wasalam u garab taagnaa oo u difaaci jiray, maxaa yeelay wuxuu ahaa gabaadkii ku gudbanaa faafinta diinta islaamka oo ka hor taagnaa weerarada isla weynayaasha iyo makasta, laakiinse wuxuu ka soo fiqi waayey diintii awowayaashii oo habowga ahayd, sidaa buuna liibaantii ku seegay. saxiix albukhaari waxaa ku yaal in alcabaas bin cabdimudallib ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam, maxaad adeerkaa u tartay? waa kii ku difaaci jiray oo dartaa u caroon jiray. wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi, wuxuu naarta uga jiraa meel aan mool ahayn, aniga la'aantayna naarta meesha u hoosaysa buu geli lahaa. sacad bin maalikna wuxuu maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo inta adeerkii agtiisa lagu soo hadal qaaday yidhi, waxay u dhowdahay inay shafeecadaydu maalinta qiyaamaha anfacdo oo naarta meel qoto dhow oo canqowgiisa gaaraysa laga geliyo. markii ay geeridii abu daalib 2 bilood ka soo wareegtay bay qowjadii hooyadii mu'miniinta khadiija bintu khuwaylid geeriyootay oo tii alle u timid. waxayna xijaabatay bishii ramadaan oo ahayd ayaamihii u dambeeyey sanadkii 10aad ee nebinimada, iyadoo markaas 65 jir ah. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam markaas 50 jir buu ahaa. khadiija waxay ka mid ahayd nicmooyinkii waaweynaa ee alle rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku manaystay, waxayna la joogtay muddo rubuc qarni ah, 25 sano, oo markii uu tiiraanyoodo la taahaysay oo u garaabaysay, markii uu ciriiryoomana cudud siinaysay. waxayna ku taageeri jirtay gaarsiinta fariinta alleh, iyadoo si walba ugala qayb qaadatay halgankii kharaara oo naf iyo maalba u darabtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa laga sheegay hadal macnihiisu yahay, waa ay rumaysay markii dadku igu gaaloobay, oo waa ay iga siisatay markii ay iga beensadeen, oo maalkeedii bay wax iga siisay markii dadku i qadiyey. allena iyada buu ilmo uur iga siiyey, cid kalena ilmo igama siin. waxaa wariyay alimaam axmed. saxiix albukhaarina waxaa ku yaal oo abu hurayra laga wariyey in uu jibriil rasuulka sala allahu calayhi wasalam u yimid oo uu markaas ku yidhi, rasuulkii allow, waatan khadiija kuu soo socota iyadoo sita weel iidaan ku jiro, ee markii ay kuu timaado gaarsii salaantii rabbigeed, uguna bishaaree guri jannada ku yaal oo dheeman ka samaysan oo aan buuq iyo daal toonna lahayn. labadaas dhacdo ee murugada badani waxay dhaceen muddo aan kala fogeyn, waxayna nebiga ku reebeen naxdin iyo murugo, maxaa yeelay wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam muddo yar gudaheed waayey 2 qof ee garabka iyo gaashaanka u ahaa. muddadii 10 sano ahayd ee uu halganka kharaar ku jiray, abu daalibkii weerarka gaalada kaga gudbanaa oo af iyo adinba ku difaaci jiray, iyo khadiijadii markii uu daalo ama murugoodo hoyga u ahayd, oo uu gurigeedu naas irmaan oo irsaaqadi uga socoto, iyo gabaadka uu qoraxda iyo qabowga ka galo u ahaa. wuxuu waayay abu daalibkii dartiis ay dad oo dhan isu naceen oo derbiga loo soo dhaafi waayey ahaa, iyo khadiijadii wehelkiisa ahayd oo dhibaato walba la wadaagtay. markii abu daalib geeriyooday, gaaladii waxay ku dhiiratay inay si qaawan ugu abyoodaan oo af iyo adinba wax ku yeelaan oo xumeeyaan. markii uu dhibtoodii u adkaysan waayey oo murugtii horena ay murug ugu sii dareen, buu daa'if ka aaday, isagoo rajaynaya bal inay diinta ka yeelaan oo hooyaan oo tolkii uga hiiliyaan. mase uu helin wax hoy ah
oo u hiiliya, ee iyana si xun bay u dhibaateeyeen, oo waxaan tulkii weligii u geysan bay gaarsiiyeen, oo markii uu isagoo daalan oo gaajo iyo haraad la luudaya u yimid, bay makas maangaab ah ku direen oo ay dhagax kala daaleen. Markaas buu isagoo dhiig godindaha dareerayo raadkiisii dib ugu soo laabtay reer Maka, sida ay rasuulka cadaadintiisa u sii adkeeyeen si la mid ah bay asxaabtiisiina u cadaadiyeen. Markaas buu saaxiibkiisii Abubakar isaga haajiray inta dhibtoodii u adkaysan waayey oo dhulka xabashida afka saaray. Markii uu Barkhal Qamaad gaaray baa waxaa soo celiyey oo magangeliyo siiyey ibnu Daqana. Ibnu Isxaaq wuxuu yidhi, markii Abu Daalib geeriyooday, waxay Quraysh rasuulka gaarsiisay waxaysan kula dhicin intii Abu Daalib noolaa, ilaa ay xataa doqomadii haweysteen oo midkood maalin madaxa ciid uga shubay. Markaasuu gurigiisii tegay iyadoo ciiddii madaxa kaga taal. Saa waxaa kacday oo iyadoo ooyeysa ciiddii ka dhaqday gabdhihiisa midood, isagoo rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku leh, maandhay ha ooyin, aabbaha alle baa dhowraye. Wuxuu kaloo yidhi, Quraysh waxaa necbahay ima gaarsin intii Abu Daalib noolaa. Dhibaatooyinkaas iyo murugooyinkaas isugu xigsadayna sanadkaas dartood buu u bixiyey sanadkii murugada. Bishii Shawaal soonfur ee isla sanadka 10aad buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam guursaday Sawda bintu Samca, oo ka mid ahayd dadkii horay u islaamay hijradii labaadna dadkii dhulka xabashida aaday, bayna iyada iyo ninkeeda oo la oran jiray As-Sakraan bin Camar ka mid ahaayeen. As-Sakraan bin Camar oo ka mid ahaa isna dadkii horay u islaamay wuxuu afadiisa ula haajiray dhulka xabashida, halkaas buuna ku geeriyooday. Markii ay ciidda baxday buuna rasuulku sallallahu calayhi wasallam doonay oo guursaday, waxayna ahayd naag uu guursado Khadiijo kadib tii u horreysay. Waayihii u dambeeyeyna waxay kalkeedii u daysay Caaisha. Walaalayaal, darsigeenni maanta halka ayuu inoo joogayaa. Inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسولك صلى الله عليه وسلم markii waraqa uu ka soo baxay uu hawlihiisii diin faafinta halkiisa ka sii watay. Qurayshna inkastoo ay qaadacaadii joojiyeen, haddana ma ay dayn cadaadintii muslimiinta iyo sortaagii diinta Alle. Abu Daalibna kama dabcin daafacaadii wiilka walaalkii, laakiin saddex buu noqday oo 80kiibu sare u dhaafay, oo dhibaatooyinkii faraha badnaa iyo jirooyin isugu xigsaday baa jirkiisii jileeyay oo awoodiisii nugliyay. Dhabarkiisiina waa soo gotay. Bila yarna kama soo wareegin markii uu waraqa ka soo baxay, markii ay jirra qabatay oo ku sii adkaatay. Markaas bay mushrikiintii ka baqeen inay magaxuma carabta dhexdeeda u gasho haddii ay markii uu dhinto kadib wiilka uu adeerka u yahay wax gaarsiiyaan. Markaasay waxay isku dayeen inay mar kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo la joogo gorgoro la galaan, oo waxaysan awal u ogolaadaan. Markaas bay wafdigoodii u dambeeyey Abu Daalib u direen. Ibnu Isxaaq iyo rag kaleba waxay yidhaahdeen, markii Abu Daalib jiraday oo Qurayshi gaartay inuu cuslaaday, bay Qurayshi is yidhaahdeen, Xamse iyo Cumar waa islaameen. Arrinka Muxamedna Quraysh oo dhan waa ku faafay, ee inakeenna aan Abu Daalib u tagno wiilka uu adeerka u yahay ha inooga cadgooyo, isagana ha uu cadgooyo, oo ha noo garqaybsho. Wallaahi baanan aamin ka qabin inay talada naga boobaane. Waxay kaloo yidhaahdeen baa la yidhi, waxaa laga yaabaa in odaygaani dhinto oo dabadii wiilkiisa loo dabamaro, oo Carabi inagu ceebayso oo tiraahdo intuu noolaa ku dhici waayeen bay markii uu dhintay wax yeeleen. Abu Daalib bay u tageen oo la hadleen iyagoo 25 nin ah, oo ay ku jiraan odayaashoodii sida Cutba bin Rabiica, Shayba bin Rabiica, Abu Jahl bin Hisham, Umayya bin Khalaf, Sufyaan bin Harab iyo rag kale oo duqay ah. Markaas bay yidhaahdeen, Abu Daalib oo sida aad og tahay naga mid baata, waxaana ku soo hareeyay waxa aad arkaysid, waana kuu baqaynaa.
waadna og tahay annaga iyo wiilka aad adeerka u tahay wixiina dhex yeel ee u yeer oo wuxuu nagu yeesho naga sii waxaan ku yeelanana nooga qaad si uu noo daayo annaguna aanu dayno oo annaga iyo diintayadaba uu faraha nooga qaado annaguna aan isaga iyo diintiisaba faraha uga qaadno markaas buu abudaalib u cidiray markii uu yimidna wuxuu ku yidhi maandhow waa kuwan duqaydii tolkaa kuu soo shiray si ay xaqaaga kuu siiyaan adigana xaqooda kaaga qaataan oo aad u kala garqaadataan markaas buu u sheegay arrintii ay u soo bandhigeen oo ahayd in labada geesood ammaan isa siiyaan oo aanay waxba isku darsan markaas buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam hadal macnihiisu yahay bal ka warrama haddii aan idin siiyo kelmad haddii aad tidhaahdaan aad carab ku mulkiyaysaan cajamtuna hoostiina imaanayso oo aad u talinaysaan markii uu ereygaas yidhi bay hakadeen oo taladii ka dhuntay oo garan waayeen si ay u diidaan kelmaddaas waxtarkeedu intaa la eg yahay markaas buu yidhi abujahal maxay tahay waa nagu aabbahaaye 10 la mid ah baan kuu dhahaynaaye wuxuu yidhi waxaad odhanaysaan laa ilaaha ila allah ma jiro wax xaq u leh in la caabudo oo aan ahayn alleh waxa aad sokadii caabudaana faraha ka qaadaan markaas bay gacmaha isku garaaceen oo dabadeed yidhaahdeen ma waxaad rabtaan maxamedow inaad la caabudayaasha ha la caabudo ka dhigto arrinkaagu waa la yaab markaas bay isku yidhaahdeen wallaahi baydaan ninkan waxaad rabtaan mid ka helayn ee ina kiciya oo diinta aabbayaashin ku mintida inta alle ninkan iyo idinka idinkala saarayo wayna kala tageen waxaana ku soo degay hadalkooda aayadahan qur'aanka jiradiiba abudaalib ku sii cuslaatay in yar kadibna tii alle baa u timid oo waa uu xijaabtay wuxuuna geeriyooday bishii rajab ee sanadkii 10aad ee nebinimada 6 bilood kadib markii waraqa laga soo baxay waxaa saxiix al-Bukhari ku yaal oo Musayab laga wariyay markii ay abudaalib geeridii soo kor joogsatay uu nabigu sallallahu calayhi wasallam u yimid iyadoo abujahal la joogo oo ku yiri hadal macnihiisu yahay adeerow dheh laa ilaaha illa allah waa kelmad aan alle agtii kaaga doodi doono markaasay yidhaahdeen abujahal iyo cabdullaahi ibnu umaya abudaalibow madiintii cabdimudallib baad wax ku doorsanaysaa sidaas bayna ku hayeen ilaa uu diintii cabdimudallib haysto markaasuu nabigu sallallahu calayhi wasallam yidhi dambi dhaaf baan kuu baryayaa markaas buu alle soo dejiyey caddayn uma baahna sidii abudaalib nebiga sallallahu calayhi wasallam u garab taagnaa oo u difaaci jiray maxaa yeelay wuxuu ahaa gabaadkii ku gudbanaa faafinta diinta islaamka oo ka hor taagnaa weerarada isla weynayaasha iyo makasta laakiinse wuxuu ka soo fiqi waayey diintii awoyaashii oo habowga ahayd sidaa buuna liibaantii ku seegay saxiix al-Bukhari waxaa ku yaal in al-Cabbaas bin cabdimudallib ku yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam maxaad adeerkaa u tartay waa kii ku difaaci jiray oo dartaa u caroon jiray wuxuu nabigu sallallahu calayhi wasallam yiri wuxuu naarta uga jiraa meel aan mool ahayn aniga la'aantayna naarta meesha u hoosaysa buu geli lahaa Sacad bin Maalikna wuxuu maqlay rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo inta adeerkii agtiisa lagu soo hadal qaaday yiri waxay u dhowdahay inay shafeecadaydu maalinta qiyaamaha anfacdo oo naarta meel qoto dhow oo canqowgiisa gaaraysa laga geliyo markii ay geeridii abudaalib 2 bilood ka soo wareegtay bay qowjadii hooyadii mu'miniinta Khadiija bintu Khuwaylid geeriyootay oo tii alle u timid waxayna xijaabatay bishii Ramadaan oo ahayd ayaamihii u dambeeyay sanadkii 10aad ee nebinimada iyadoo markaas 65 jir ah rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam markaas 50 jir buu ahaa Khadiija waxay ka mid ahayd nicmooyinkii waaweynaa ee alle rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku manaystay waxayna la joogtay muddo rubuc qarni ah 25 sano
oo markii uu tiiraanyoodo la taahaysay oo u garaabaysay, markii uu ciriiryoomana cudud siinaysay. waxayna ku taageeri jirtay gaarsiinta fariinta Alleh iyadoo si walba ugala qayb qaadatay halgankii qaraaraa oo naf iyo maalba u darabtay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa laga sheegay hadal macnihiisu yahay, waa ay rumaysay markii dadku igu gaaloobay, oo waa ay iga siisatay markii ay iga beensadeen, oo maalkeedii bay wax iga siisay markii dadku i qadiyey. Allena iyada buu ilmo uur iga siiyey, cid kalena ilmo igama siin. waxaa wariyay al-imaam Axmed. saxiix al-Bukhaarina waxaa ku yaal oo Abu Hurayra laga wariyay in uu Jibriil rasuulka sallallahu calayhi wasallam u yimid, oo uu markaas ku yidhi, rasuulkii Allow, waatan Khadiija kuu soo socota iyadoo sita weel iidaan ku jiro, ee markii ay ku timaado gaarsii salaantii rabbigeed, uguna bishaaree guri jannada ku yaal oo dheeman ka samaysan, oo aan buuq iyo daal toona lahayn. labadaas dhacdo ee murugada badani waxay dhaceen muddo aan kala fogeyn, waxayna nebiga ku reebeen naxdin iyo murugo, maxaa yeelay wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam muddo yar gudaheed waayey labadii qof ee garabka iyo gaashaanka u ahaa. muddadii 10 sano ahayd ee uu halganka qaraar ku jiray, Abu Daalibkii weerarka gaalada kaga gudbanaa oo af iyo adinba ku difaaci jiray, iyo Khadiijadii markii uu daalo ama murugoodo hoyga u ahayd, oo uu gurigeedu naas irmaan oo irsaaqadi uga socoto, iyo gabaadka uu qoraxda iyo qabowga ka galo u ahaa. wuxuu waayay Abu Daalibkii dartiis ay dad oo dhan isu naceen, oo derbiga loo soo dhaafi waayay ahaa, iyo Khadiijadii wehelkiisa ahayd oo dhibaato walba la wadaagtay. markii Abu Daalib geeriyooday, gaaladii waxay ku dhiiratay inay si qaawan ugu abyoodaan oo af iyo adinba wax ku yeelaan oo xumeeyaan. markii uu dhibtoodii u adkaysan waayay, oo murugtii horena ay murug ugu sii dareen, buu Daa'if ka aaday, isagoo rajaynaya bal inay diinta ka yeelaan oo hooyaan oo tolkii uga hiiliyaan. mase uu helin wax hoy ah oo u hiiliya, ee iyana si xun bay u dhibaateeyeen, oo waxaan tolkii weligii u geysan bay gaarsiiyeen. oo markii uu isagoo daalan oo gaajo iyo haraad la luudaya u yimid, bay makas maangaab ah ku direen oo ay dhagax kala daaleen. markaas buu isagoo dhiig godindaha dareerayo raadkiisii dib ugu soo laabtay reer Maka, sida ay rasuulka cadaadintiisa u sii adkeeyeen si la mid ah bay asxaabtiisiina u cadaadiyeen. markaas buu saaxiibkiisii Abubakar isaga haajiray inta dhibtoodii u adkaysan waayey, oo dhulka xabashida afka saaray. markii uu Barkhal qamaad gaaray, baa waxaa soo celiyey oo magangeliyo siiyey ibnu Daqana. ibnu Isxaaq wuxuu yidhi, markii Abu Daalib geeriyooday, waxay Quraysh rasuulka gaarsiisay waxaysan kula dhicin intii Abu Daalib noolaa, ilaa ay xataa doqomadii haweysteen, oo midkood maalin madaxa ciid uga shubay. markaasuu gurigiisii tegay, iyadoo ciiddii madaxa kaga taal. saa waxaa kacday oo iyadoo ooyeysa ciiddii ka dhaqday gabdhihiisa midood, isagoo rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku leh, maandhay ha ooyin, aabbaha Alle baa dhowraye. wuxuu kaloo yidhi, Quraysh waxaa necbahay ima gaarsin intii Abu Daalib noolaa. dhibaatooyinkaas iyo murugooyinkaas isugu xigsadayna sanadkaas dartood buu u bixiyey sanadkii murugada. bishii Shawaal soonfur ee isla sanadka 10aad buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam guursaday Sawda binti Samca, oo ka mid ahayd dadkii horay u islaamay hijradii labaadna dadkii dhulka xabashida aaday, bayna iyada iyo ninkeeda oo la oran jiray As-Sakraan bin Camar ka mid ahaayeen. As-Sakraan bin Camar oo ka mid ahaa isna dadkii horay u islaamay, wuxuu afadiisa ula haajiray dhulka xabashida, halkaas buuna ku geeriyooday. markii ay ciidda baxday, buuna rasuulku sallallahu calayhi wasallam doonay oo guursaday, waxayna ahayd naag uu guursado Khadiijo kadib tii u horreysay. waayihii u dambeeyeyna
waxay kalkeedii u daysay Caaisha. Walaalayaal, darsigeena maanta halka ayuu inoo joogayaa. Inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسولك صلى الله عليه وسلم markii waraqa uu ka soo baxay uu hawlihiisii diin faafinta halkiisa ka sii watay. Qurayshna inkastoo ay qaadacaadii joojiyeen, haddana ma ay dayn cadaadintii muslimiinta iyo sortaagii diinta Alle. Abu Daalibna kama dabcin daafacaadii wiilka walaalkii, laakiin saddex buu noqday oo 80kiibu sare u dhaafay, oo dhibaatooyinkii faraha badnaa iyo jirooyin isugu xigsaday baa jirkiisii jileeyay oo awoodiisii nugliyay. Dhabarkiisiina waa soo gotay. Bila yarna kama soo wareegin markii uu waraqa ka soo baxay, markii ay jirra qabatay oo ku sii adkaatay. Markaas bay mushrikiintii ka baqeen inay magaxuma carabta dhexdeeda u gasho haddii ay markii uu dhinto kadib wiilka uu adeerka u yahay wax gaarsiiyaan. Markaasay waxay isku dayeen inay mar kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo la joogo gorgoro la galaan, oo waxaysan awal u ogolaadaan. Markaas bay wafdigoodii u dambeeyay Abu Daalib u direen. Ibnu Isxaaq iyo rag kaleba waxay yiraahdeen markii Abu Daalib jiraday oo Quraysh gaartay inuu cuslaaday, bay Quraysh is yiraahdeen Xamse iyo Cumar waa islaameen. Arrinka Muxammedna Quraysh oo dhan waa ku faafay, inakeen aan Abu Daalib u tagno wiilka uu adeerka u yahay ha inooga cadgooyo, isagana ha uu cadgooyo oo ha noo garqaybsho. Wallaahi baanan aamin ka qabin inay talada naga boobaan. Waxay kaloo yiraahdeen baa la yiri, waxaa laga yaabaa in odaygaani dhinto oo dabadii wiilkiisa loo dabamaro, oo Carabi inagu ceebayso oo tiraahdo intuu noolaa ku dhici waayeen bay markii uu dhintay wax yeeleen. Abu Daalib bay u tageen oo la hadleen iyagoo 25 nin ah oo ay ku jiraan odayaashoodii sida Cutba bin Rabiica, Shayba bin Rabiica, Abu Jahl bin Hisham, Umayya bin Khalaf, Sufyaan bin Harab iyo rag kale oo duqay ah. Markaas bay yiraahdeen Abu Daalib oo sida aad og tahay naga mid baata, waxaana ku soo hareeyay waxa aad arkaysid, waana ku baqaynaa. Waadna og tahay annaga iyo wiilka aad adeerka u tahay wixiina dhex yeel, u yeer oo wuxuu nagu yeesho naga sii, waxaan ku yeelanana nooga qaad si uu noo daayo annaguna aanu dayno, oo annaga iyo diintayadaba uu faraha nooga qaado, annaguna aan isaga iyo diintiisaba faraha uga qaadno. Markaas buu Abu Daalib u cidiray. Markii uu yimidna wuxuu ku yiri, maandhow waa kuwan duqaydii tolkaa kuu soo shiray si ay xaqaaga kuu siiyaan, adigana xaqooda kaaga qaataan oo aad u kala garqaadataan. Markaas buu u sheegay arrintii ay u soo bandhigeen oo ahayd in labada geesood ammaan isa siiyaan oo aanay waxba isku darsan. Markaas buu rasuulku yiri sallallahu calayhi wasallam hadal macnihiisu yahay, bal ka warrama haddii aan idin siiyo kelmad haddii aad tiraahdaan aad Carab ku mulkiyeysaan, cajamtuna hoostiina imaanayso oo aad u talinaysaan. Markii uu ereygaas yiri bay hakadeen oo taladii ka dhuntay oo garan waayeen si ay u diidaan kelmaddaas waxtarkeedu intaa la eg yahay. Markaas buu yiri Abu Jahl, maxay tahay? Waa nagu aabahaaye 10 la mid ah baan ku dhahaynaaye. Wuxuu yiri waxaad oranaysaan laa ilaaha illa Allah, ma jiro wax xaq u leh in la caabudo oo aan ahayn Alle. Waxa aad sokadii caabudaana faraha ka qaadaan. Markaas bay gacmaha isku garaaceen oo dabadeed yiraahdeen, ma waxaad rabtaan Maxamedow inaad la caabudayaasha hal la caabudo ka dhigto? Arrinkaagu waa la yaab. Markaas bay isku yiraahdeen, wallaahi baydaan ninkan waxaad rabtaan mid ka helayn ina kiciya oo diinta aabayaashin ku mintida. Inta Alle ninkan iyo idinkala saarayo wayna kala tageen, waxaana ku soo degay hadalkooda aayadahan Qur'aanka. Jiradii baa Abu Daalib ku soo cuslaatay, in yar kadibna tii Alle baa u timid oo waa uu xijaabtay. Wuxuuna geeriyooday bishii Rajab ee sanadkii 10aad ee nebinimada
6 bilood kadib markii Waraqa laga soo baxay. waxaa saxiix al-Bukhaari ku yaal oo Musayab laga wariyay markii ay Abu Daalib geeridii soo kor joogsatay uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam u yimid iyadoo Abu Jahal la joogo oo ku yiri hadal macnihiisu yahay adeerow dheh laa ilaaha illa Allah waa kelmad aan alle agtii kaaga doodi doono markaasay yiraahdeen Abu Jahal iyo Abdullah ibn Umayya Abu Daalibow madiintii Cabdulmudallib baad wax ku doorsanaysaa sidaas bayna ku hayeen ilaa uu diintii Cabdulmudallib haysto. markaasuu Nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri dambi dhaaf baan ku baryayaa markaas buu alle soo dejiyay. cadayn uma baahna sidii Abu Daalib Nabiga sallallahu alayhi wasallam u garab taagnaa oo u difaaci jiray. maxaa yeelay wuxuu ahaa gabaadkii ku gudbanaa faafinta diinta Islaamka oo ka hor taagnaa weerarada isla weynayaasha iyo makasta, laakiinse wuxuu ka soo fiqi waayay diintii awooyaashii oo habowga ahayd sidaa buuna liibaantii ku seegay. saxiix al-Bukhaari waxaa ku yaal in al-Cabbaas bin Cabdimudallib ku yiri Nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaad adeerkaa u tartay waa kii ku difaaci jiray oo dartaa u caroon jiray. wuxuu Nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri wuxuu naarta uga jiraa meel aan mool ahayn, aniga la'aantayna naarta meesha u hooseysa uu geli lahaa. Sacad bin Maalikna wuxuu maqlay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo inta adeerkii agtiisa lagu soo hadal qaaday yiri waxay u dhowdahay inay shafeecadaydu maalinta qiyaamaha anfacdo oo naarta meel qoto dhow oo canqowgiisa gaaraysa laga geliyo. markii ay geeridii Abu Daalib 2 bilood ka soo wareegtay bay qowjadii hooyadii mu'miniinta Khadiija bintu Khuwaylid geeriyootay oo tii alle u timid. waxayna xijaabatay bishii Ramadaan oo ahayd ayaamihii u dambeeyay sanadkii 10aad ee nebinimada. iyadoo markaas 65 jir ah rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam markaas 50 jir buu ahaa. Khadiija waxay ka mid ahayd nicmooyinkii waaweynaa ee alle rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku manaystay, waxayna la joogtay muddo rubuc qarni ah 25 sano oo markii uu tiiraanyoodo la taahaysay oo u garaabaysay, markii uu ciriiriyoomana cudud siinaysay. waxayna ku taageeri jirtay gaarsiinta fariinta alle iyadoo si walba ugala qayb qaadatay halgankii kharaara oo naf iyo maalba u darabtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa laga sheegay hadal macnihiisu yahay waa ay rumaysay markii dadku igu gaaloobay oo waa ay iga siisatay markii ay iga beensadeen oo maalkeedii bay wax iga siisay markii dadku i qadiyay. allena iyada buu ilmo uur iga siiyay, cid kalena ilmo igama siin. waxaa wariyay al-Imaam Ahmed. saxiix al-Bukhaarina waxaa ku yaal oo Abu Hurayra laga wariyay in uu Jibriil rasuulka sallallahu alayhi wasallam u yimid oo uu markaas ku yiri rasuulkii Allow waatan Khadiija ku soo socota iyadoo sita weel iidaan ku jiro ee markii ay ku timaado gaarsii salaantii rabbigeed uguna bishaaree guri jannada ku yaal oo dheeman ka samaysan oo aan buuq iyo daal toona lahayn. labadaas dhacdo ee murugada badani waxay dhaceen muddo aan kala fogeyn, waxayna Nabiga ku reebeen naxdin iyo murugo maxaa yeelay wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam muddo yar gudaheed waayay labadii qof ee garabka iyo gaashaanka u ahaa. muddadii 10 sano ahayd ee uu halganka kharaar ku jiray Abu Daalibkii weerarka gaalada kaga gudbanaa oo af iyo adinba ku difaaci jiray, iyo Khadiijadii markii uu daalo ama murugoodo hoyga u ahayd oo gurigeedu naas irmaan oo irsaaqadi uga socoto iyo gabaadka uu qoraxda iyo qabowga ka galo u ahaa. wuxuu waayay Abu Daalibkii dartiis ay dad oo dhan isu naceen oo darbiga loo soo dhaafi waayay ahaa, iyo Khadiijadii wehelkiisa ahayd oo dhibaato walba la wadaagtay. markii Abu Daalib geeriyooday gaaladii waxay ku dhiiratay inay si qaawan ugu abyoodaan
oo af iyo adinba wax ku yeelaan oo xumeeyaan. Markii uu dhibtoodii u adkaysan waayey oo murugtii horena ay murug ugu sii dareen, buu Daa'if ka aaday isagoo rajaynaya bal inay diinta ka yeelaan oo hooyaan oo tolkii uga hiiliyaan. Mase uu helin wax hoy ah oo u hiiliya, ee iyana si xun bay u dhibaateeyeen oo waxaan tolkii weligii u geysan bay gaarsiiyeen. Oo markii uu isagoo daalan oo gaajo iyo haraad la luudaya u yimid, bay makas maangaab ah ku direen oo ay dhagax kala daaleen. Markaas buu isagoo dhiig godindaha dareerayo raadkiisii dib ugu soo laabtay reer Maka, sida ay rasuulka cadaadintiisa u sii adkeeyeen si la mid ah bay asxaabtiisiina u cadaadiyeen. Markaas buu saaxiibkiisii Abubakar isaga haajiray inta dhibtoodii u adkaysan waayey oo dhulka xabashida afka saaray. Markii uu Barkhal Qamaad gaaray, baa waxaa soo celiyey oo magangeliyo siiyey ibnu Daqana. Ibnu Isxaaq wuxuu yidhi, markii Abu Daalib geeriyooday, waxay Quraysh rasuulka gaarsiisay waxaysan kula dhicin intii Abu Daalib noolaa, ilaa ay xataa doqomadii haweysteen oo midkood maalin madaxa ciid uga shubay. Markaasuu gurigiisii tegay iyadoo ciiddii madaxa kaga taal. Saa waxaa kacday oo iyadoo ooyeysa ciiddii ka dhaqday gabdhihiisa midood, isagoo rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku leh, maandhay ha ooyin, aabbaha Alle baa dhowraye. Wuxuu kaloo yidhi, Quraysh waxaa necbahay ima gaarsin intii Abu Daalib noolaa. Dhibaatooyinkaas iyo murugooyinkaas isugu xigsadayna sanadkaas dartood buu u bixiyey sanadkii murugada. Bishii Shawaal soonfur ee isla sanadka 10aad buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam guursaday Sawda bintu Samca, oo ka mid ahayd dadkii horay u islaamay hijradii labaadna dadkii dhulka xabashida aaday, bayna iyada iyo ninkeeda oo la oran jiray As-Sakraan bin Camar ka mid ahaayeen. As-Sakraan bin Camar oo ka mid ahaa isna dadkii horay u islaamay, wuxuu afadiisa ula haajiray dhulka xabashida, halkaas buuna ku geeriyooday. Markii ay ciidda baxday, buuna rasuulku sallallahu calayhi wasallam doonay oo guursaday, waxayna ahayd naag uu guursado Khadiijo kadib tii u horreysay. Waayihii u dambeeyeyna waxay kalkeedii u daysay Caaisha. Walaalayaal, darsigeenni maanta halka ayuu inoo joogayaa. Inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe.